السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahaygi jannada jeclaa ama sadaqaadka jeclaa waxaan idin hayaa ajar aad u weyn laakiin wax yar aad ku sadaqaysanayso. Biyaha aad arkaysaan waxaa la geynayaa masaajidkaas. Masaajidka waxaa ku tukada dad aad fara badan oo muslimiina. Meeshu waa Makal Mukarrama. Marba qof ducaa qaba ayaa biyaha masaajidka geeya. Inta badan dad Carab ah degan halkan iyo dad fara badan. laakiin dad fara badan waxaa geeya khayr iyo wanaag leh. maxaa yeelay biyuhu waa waxa ugu khayrka badan ee qof bilaadan uu sadaqaysto soo sheegay Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Biyahaas waxaa la geynayaa masaajidkaas. Waxaa cabaya dadka masaajidka soo tukanaya. Bal u fiirinta ajar kulantay waa biyo lagu qaybinayo dhulkii barakeysnaa. Haddana lagu sii qaybinayo maxay ahayd masaajid dhexdiisa. Haddana lagu sii qaybinayo oo dadku ay cabayaan xilli ay aad ugu baahan yihiin. maxaa yeelay kuleelka hadda jira caadi maaha. saa darteed ayaa walaalo khayr fara badan waxay sameeyaan biyaha intay soo qaadaan bay masaajidka keenaan. saan idin tusi doono halkaa ma ooli doonaane firijeerada idin muuqdaa lagu guri doonaa. waa kuwan sidaa marka lagu guro dadkii masaajidka markay yimaadaan oo salaad u yimaadaan oo beydka Ilaahay ay yimaadaan qof walba biyaha raba firijeerku furanaya oo kala soo baxaya. qofkan martibu Ilaahay u yahay guriga alluu yimaaday salaad buu u yimi khayr buu u yimi wuu isqaboojinaya. bal niyeyso qof guriga alla yimi oo guriga alla aad biyo ugu diyaarisay biyo cabo aad ugu diyaarisay oo waliba qabow waliba dhulkii barakeysnaa ah. haddaba fiirso dadku markay cabaan biyahaas ajar intee leg baad helaysaa. inta badan dadku waxay sameeyaan markay sii baxayaan biyaha leen u gala waa idin tusi doonaa masaajidka hadii duhur maanta aan ku tukado insha Allah fajr baan ku tukaday waxaan idin tusi doonaa dadkii oo fail ku jira biyihii sii dhamaanaya iyo meeshii marka dambe arka salaad casar lagu gaarinba tolo salaad casar maxal ba ku harmaysan laba caag waxaad arkaysaan waa 10 caag ama 10 kartoon 10 kartoonba waxay ka kooban yihiin 25 xabo waa 250 xabo oo biyo ah. 250 xabo biyo intii joogan ma taqaanaa $16 balas qofka soo qaadaya oo xoogaa la siiyo. masaajidka dadkaas aad tukanaya fajr ba dadkaas ka baxeen wali way fadhiyaan. waxay ahayd fajr waxa laga baxay 11 iyo wax hadda dadku waxay fadhiyaan yani 6 iyo 30 daqiiqo. sadaqaadku way iska socdaan biyahaas la keenaa timirta la keenaa. walaalahayga marka aan jeclahay waan idin jeclahay intaan joogan idinka faa'iideen insha Allah. ما هو حوالي اللي وصل دراية خاصة ولا لها مريكن جوجا زيل كيجا هي وصادر سنة سا أما ذيك حنون سنة ونيسو أما إلمها أما النفط هذا ساس وكل حاجة خلاص وقادم ساتكم منكوجين إن شاء الله تعالى. أجر كسر بين إذا لو ذاقو وحن حوالي ذيك الدنيا معها لكن حصل خير كان آد كأوين أقول لك بركة جوجا ولي بهدنا صدق يعني العك يرأيكم بحيسه ولا لها قيمها بدن الصدقة لو ذاك dad fara badan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ku siin doona dad badan baa Ilaahay janno ku siin doona. xaqiiqatan wax la sadaqaysto wax ugu fadliga badan waa biyo. haddana dhulkii barakeysnaa joogo haddana beyd Ilaahay lagu qaybinayo gurigi Ilaahay lagu qaybinayo. waad ogsoontihiin guriyaha Ilaahay waa meelaha alla ugu jecel yahay. waxaad arkarto ma arkaysaan waa biyihii laga dhameystay dad fara badan baa soo sadaqaystay biyaha saas loo dhameeyaa. salaada marka laga baxo yaaba u dhimanaysa sida firijeerka leenka loogu jiro marka soo sadaqaysta